garaad cabdirashiid garaad ismaaciil ducaale oo ka mid ah eesimada waaweyn ee gobollada sool sanaag iyo buuhoodle oo maanta la hadlayay telefishinka SBC ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay koonfurta gobolka sool. halkan waxaan saaka aan ugu baxay in aan ka hadlo wixii baaq ah iyo wixii hawla ee labada beelood ee koonfurta sool labadayada gacmood ah wadnaha yaga ahaa wixii aan odhan lahayn horaanu u niri haddeer insha Allah ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay sidii hore ka duwanaato oo ay arrintaasi maadaama ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay isugu timi inay dhammaanayso laakiin in yar oo dardaaran ah ayaan dadka u sheegaya runtii arrintaasi waxay tahay bilaa caleeg ama isim sheegta ama jeneraal sheegta ama wasiir sheegta ama dad kale oo caana sheegta ilaa 2004 dadka ku dhex jiray ummadda Soomaaliyeed ee u timi arrinta u daaya faraha uga qaada iyagu isku gudbeen hal la joojiyo dadka dhinac ordayay hore wax uga qaban waayeen dhul bahante waliba waxaan leeyahay wixiina waynu iskaraynaa ma doonayno wax badan baanu media ka warwareegnay inaanu farta ku soo fiiqno wixii jiray waanu ogay ayaantii dawlad nabadu inaanay dhammaan waanu ogay labada dhinacba in wax jiraan waanu ogay inta xishood iyo mataqaanaayay waxaanu arkayno qariya iyo balbalsi kalun bay noqon ayaanu intaaba ku aamusnay war faraha lagala baxo ha loo daayo dadka yimi ummadda timi ha loo daayo waxba yaan lagu wixii aad ku kaalmayn kartaan iyo wixii hawl iyo goobjoog cidna idima diidana talada ha loo daayo maanta waa maalintii ugu dambeysay ummadda Soomaaliyeed ee timi ha loo daayo waxaanu kaloo halka kan uga mahadnaqaynaa cid allaalay maamul ha noqoto dawladda ha noqoto cid kastaba ha noqoto ciddii wixii dhacay hore u dhacay ciddii maanta si wanaaga iyo sharaf iyo taakulayn iyo wax walbana la daba taagan ee ka daacada ah iyagana waxaan leenahay idinkana ilaahay haydu guuleeyo. geesta kale garaad cabdirashiid garaad ismaaciil ayaa waxa uu mahadnaqay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Cagjar oo deeq mucaawino ah gaarsiiyay dadka walaalaha ee ka barakacay colaadda koonfurta gobolka Sool. madaxweyne Cagjar madaxweynaha ismaamulka Soomaaliyeed mas'uuliyiintiisa dawladda Itoobiya haddii ilaahayba ku roon yahay salaadiintooda odayaashooda indhergaradkooda ururadooda haweenka iyo cid walbana waxaan ugu mahadnaqaynaa gurmadka degdega ah ee ilaa masaafada soo socday ee halkaa yimi ee halkaa soo istaagay iyagana waan ugu mahadnaqaynaa waxaanuna ka codsanaynaa meel kastoo ummadoodu ay joogto iyo maamul kastoo ay joogaan inay sidaa u garab taagnaadaan waanu guul soo korodhay waxaan kaloo dabada ka raacinayaa hawlaha yaryar ee nabadii aynu hore u xidhnay xagga ciilaf weyn iyo area dadku way arkaan waxa arrada ka socda hal la isxakameeyo haddii wax yari dhacaan waxa waa laga daba tagayaa siday ahayd baa loo xallinayaa nimayo waxa lagu soo noqdo sidii loo noolaan jiray wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maxamed jaamac umal SBC Hargeysa.